ciidanka beesha ciise ayaa goordhow gacanta waxay ku dhigeen gaadiid la sheegay inay hub u sideen beesha Samaroon howlgal qorsheysan oo ka dhacay bannaanka magaalada Boorama ciidanka ciise caawa magaalada Boorama waxay u jiraan wax ka yar 17 kiiloomitir waana cabsi xoog leh in Boorama ay qabsadaan ciidanka beesha ciise waan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Awdal iyo gaadiidka la qabtay sidoo kale qodobada kale ee xasaasiga ah oo aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro oo telefoon degdeg ah u diray ugaaska guud ee beelaha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim Cirro iyo ugaas Mustafa maxay ka wada hadleen maxaa laga qariyay maxaa lagu heshiiyay waan ku faahfaahin doonaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa ciidamada Itoobiya ee saldhigga ku leh garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ayaa diiday inay garoonkaasi ku wareejiyaan maleeshiyaadkii xoogga ku qabsaday magaalada Baydhabo qodobadaas iyo macluumaadadii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday taa markii kugu horeysay ku soo birida waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga ee nagu reeb aan ku bilaabo qodobkeena ugu horeeya ee ciidanka beesha ciise magaalada Boorama waxay u jiraan wax ka yar 17 kiiloomitir abaara taariikhdu ama saacadu markay ahayd 1 saac iyo 15 daqiiqo xilliga geeska Afrika ciidanka beesha ciise oo hayay xogta laba gaari oo candhamile ah ayaa waxa la sheegay inay gacanta ku dhigeen gaadiidkaasi qaybta sare waxa la sheegay gaadiidka khudaar inay ka saarnaayeen qaybta hoosena waxa la sheegay in rasaas noocyo kala duwan leh ay ku ranaayeen waa kaarta cajiib ah oo beesha Samaroon ay rabtay inay ku soo dhexmarisay gaadiidkaasi ciidanka beesha ciise si hubkaasi gacantooda si nabadgelyo ah ugu soo galo sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha ciise ayaa goordhow ila wadaagay muuqaalo aan halkaasi ka helnay oo muujinaya labada gaari oo ay soo galbinayaan ciidanka beesha facaweyn ee ciise kuwaas oo loo soo galbiyay dhinacaas iyo tuulada Dixda Sheekh Awaare oo ay gacanta ku hayaan ciidanka beelweynta ciise sida uu sheegay sargaalka aan la hadlay hubkan baaris ayaa lagu sameynayaa halka uu ka yimid iyo cidda u fududeynaysa beesha ciise inay ama beesha Samaroon inay hubkaasi ay kala soo degto deegaanada xeebaha ku yaala gaar ahaan Lowyacade iyo Lughaye oo shalay dagaalo culus ay ka dhaceen mar walba oo dagaal uu dhaco dabcan dhinacyada dagaalamay feejignaan bay ku kala jiraan ama ciise ha noqoto ama Samaroon ka noqoto yaani nin cadowgaaga kaliya ma ahan ina xabad ku ridid ee waa inaad dhinacii sardoonka ka dhisan tahay dhinacii xuraansiga waa inaad ka dhisan tahay dhinacii ciidamada waa inaad ka dhisan tahay dhinacii gaadiidka waa inaad ka dhisan tahay dhinacii xataa gaadiidka kharashaadka loo isticmaali la yaani dagaal hadii la galayo wax sahlan iyo wax fudutoona ma ahan dhiig baa ku daadanaya kharash buu u baahan yahay dadaal buu u baahan yahay ciisuuna waxay rabaan inay Samaroonka curyaamiyaan oo ay ka curyaamiyaan dhanka nolosha yaani asgariga u dagaalamaya beesha Samaroon xilligaas oo qorraxdu kulushay haduu waayo cuntooyinka uu quudan lahaa ama cuntooyinka bini'aadamku uu quuto ee cuntooyinka qutuduruuriga la yiraahdo sida bariiskii baastadii sharaabkii daawooyinkii uu isticmaal lahaa haduu asgarigu waayo asgarigan iyo jabba ku dhacaya marka nimanka la yiraahdo ciisuhu laba dagaalba way galeen dagaal ah xabad toos la isku dhaco iyo dagaal ah in dhankii dhaqaalaha iyo dhankii tasiilaadka lagala dagaalamo beesha la yiraahdo Samaroonku marka hadda waxa la soo warinayaa inay rabaan inay gaadiidkaas xoog ku soo furtaan haddii noqoto inay xoog ku soo furtaan dabcan waa inaad jiirtaa jigboontiyo badan oo ka horeeya Dixda Sheekh Awaare maanta ama caaw aan kula hadlayo magaalada la yiraahdo Dixda Sheekh Awaare waxa Boorama ay u jirtaa 20 kiiloomitir barqanimadii maanta ciidamo ka tirsan beesha ciise ayaa ka soo baxay tuulada Dixda Sheekh Awaare tuulada Dixda Sheekh Awaare markay ka soo baxeen waxay u soo socdaaleen dhinacaas iyo magaalada Boorama iyagoo 17 kiiloomitir u jira magaalada Boorama ayaa ugaas Mustafa wuxuu amray in ciidamadu aysan halkooda ka dhaqaaqin yaani inaanan Boorama la gelin ugaaska amarkiisa la qaatay halkaas bay caawa joogaan magaaladana waxa loo jira 17 kiiloomitir warbixinana xalay halkan ku baahiyana waxaan idinku sheegay in suldaanka guud ee beelaha Samaroon Suldaan Cabdirashiid Doodi uu magaalada Boorama ka cararay sababtoo ah waa nin odaya wax garada og halka cadowgu uu soo jiro ama halka loo soo jiro hadii Boorama la galana suldaanka gacanta lagu soo dhigaya taasina waxay noqonaysaa ceeb iyo fadeexo raggan la yiraahdo ciisu dhinacii hubka iyo dhinacii surdoonka labada way ka dhisan yihiin dagaal sideedaba hadaa galaysid waa inaad hubka aad ku dagaalantana ah heshaa dhanka sirdoonkana waa inaad ka dhisan tahay hadda gaari labadan gaari ee la qabtay ee candhameelaha ah ee aan hadda idin sheegayo
wiig ka hore waxay ka soo baxeen dowlad deegaanka Soomaalida yacni waxaa soo rartay ganacsato qaybaha hore oo gaadiidka waxaa saarnaa baradho iyo basal iyo cambe iyo sisin baa saarnaa qaybta sagxadda inta la gaarin qaybta dhaxana rasaas culus ba halkaas yacni ku jirtay qoryaha AK47 ah rasaasta loo isticmaalo baastoladaha la yiraahdo Belgiumka bambaanooyinka inta meel la dhigo meelaha fogfog laga hago telefoonada niclayaasha ah la yiraahdo waxyaabo badan oo loo isticmaalo dagaalada ayaa dabcan gaadiidkan qaybta dhexe ee sagxadda ahayn bay ku ranaayeen taas oo dabcan ku tusinaysa in Samaroonku uu raba inuu qaado dagaal foolka fool ah laakiin dagaalkaas iyo qorshihiisa dabcan hadda sida ay xaaladdu tahay waa la fashiliyay oo waa laga hortagay waxaan la xiriiray dhinaca Samaroonka balse aan wuxuu weydiiyo gaadiidka la qabsaday wuxuuna mid kamid ah odayaashu ii sheegay gaadiidka ciisuhu ay qabsadeen inuusan hub u wadin beesha Samaroon taa bedelkeeda ay lahaayeen ganacsato u dhashay beesha Samaroon yacni ganacsatada laftirkooda waxa laga yaabaa in ciidanka Samaroonka la shaqeynayeen oo ay islahaayeen aleelaha bal halkaas ka soo gala laakiin xaaladdu ay dabcan u shaqeyn weyday sida ay dad badan aaminsan yihiin dhowr sargaal oo muhiima oo ka tirsan ciidanka maamulka ciisuhu waxay tilmaameen in ay dhinac walba kala dagaalami doonaan beesha Samaroon haddii ay mar dambe isku daydo in ay qashqashaado nabadda iyo xasiloonida dabcan dagaaladii ka dhacay eriyada magaalada Dixda Sheekh Awaare iyo deegaanada hoos yimaada dabcan khasaare dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la soo warinayaa dhinacyadu guulay kala sheeganayaan markaad eegtid sida ay dhinacyadu dhaqdhaqaaqa u sameeynayaan dabcan xaaladdu waxay ku tusinaysaa in ay sheekadu marayso meel aan waxba laga qaban karin waayahay saaxiibayaal bal wixii ku soo kordhay gaadiidka la qabtay iyo faahfaahinta macluumaadadii ugu dambeeyay waxaan idinkugu soo tabin doonaa wararkeena dambe haddii Allah uu dilay uu saamaxo markana qodobadeena kale ayaynu saaxiibayaal markana fiirinaynaa magaaladii Baydhabo ahayd oo gobolka Baay ahayd koox sida shabaabka u dagaalama ayaa dabcan qabsatay shalay maamulkii Cabdicasiis Lafta Gareen ee halkaas ka jiray bay tuureen ciidamadii Itoobiya ee marka magaalada Baydhabo joogay waxay diideen in garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ay wareejiyaan waxay diideen madaxtooyadii maamulka inay wareejiyaan waxay diideen wasaaradda amniga iyo wasaarado kale oo muhiim ah in maleeshiyaadkan ay lagu wareejiyo sababtoo ah shalay waxay sameeyeen wax u eg biliqo in guriyihii dadka shacabka lahaayeen ganacsatada guriyihii ay lahaayeen iyo hunti kale oo muhiim ah inay biliqaystaan bay shalay bilaabeen taasi oo dabcan fadeexo iyo ceeb ku noqotay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale kooxdii kale ee maleeshiyaadka badbaadada Koonfur Galbeed loogu magac daray ciidamada Itoobiya sargaal u hadlay wuxuu sheegay markii madaxweyne rasmi ah uu yeesho maamulkan inay hantidaasi wareejin doonaan oo aysan yeeli doonin aqbalini doonin in qalalaase iyo dhibaato la geliyo maamulkan Koonfur Galbeed la yiraahdo xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac la soo dhaafay magaalada si weyn looga dareemay biliqadaasi taasi oo dabcan ku tusinaysa in dhinacyadu markaad eegtid sida ay iskugu durmaantumanayaan xaaladdu ay gaartay meel aad u sareysa ciidamada Itoobiya way difaaci kareen Cabdicasiis Lafta Gareen laakiin qorshahoodu wuxuu ahaa sidaan xogta ku hayo ama ay wararku tilmaamayaan in maamulka Koonfur marka Cabdicasiis Lafta Gareen meesha ka baxay in Itoobiyaanku raali ka yihiin in meesha la keeno sida hadda qorsho uu yahay ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan xoga saas ayaa soo baxaya magaalada Baydhabo amnigeeduna waa 100% wax dhibaato kama jirto isku socodka gaadiidka iyo nolosha caadi bay u socotaa Baydhabo waxaan moodaa inay ka sii fiican tahay sidoo oray ahayd dadka baraha bulshada ku soo qoraya magaalada Baydhabo dad maleeshiyada la wareegana dabcan waxaan u maleynayaa inaysan taasi sal iyo raatoona lahayn iyana wuxuu ku soo kordhay wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa qodobkeena ugu dambeeyana madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa la soo warinayaa inuu telefoonka kula hadlay ugaaska guud ee beelaha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim kulanka waxaa la soo warinayaa in diiradda lagu saaray in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo looga jawaabayo dagaaladii ka dhacay gobolka Awdal iyo in si degdeg ah loo xaliyo xaajooyinka halkaasi ka taagan wararka la helaya waxay tilmaamayaan in bilihii la soo dhaafay xiisadda Ciise ee Samaroonka oo dhowr jeer Cabdiraxmaan Ciro soo fargeliyay laakiin la maqli waayay oo dhag jalaq loo siin waayay saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin soo dhawaada sharaf iyo karaamo muuqaalka hadduu ku soo gaaray like saar subscribe dheh channel wararka iyo warbixinada halkan aan ku daawacano ayaad mar walba heli doontaa haddii Allah uu dalo raali ka noqdo soo dhawaada saaxiibayaal